daawaday halkan waa M252 kusoo dhowow muuqaal kale. waxay la tahay inaad tahay qof dhalinyaro ah oo xiiseeya jimicsiga ama inuu dhaqdhaqaaq badan sameeyo maalin kasta, hadday ahaan lahayd socod badan, orod badan ama jimicsi badan, ama ugu yaraan niyadaada ay ku jirto inaad jimicsi badan samayso. haddii ay sidaa tahay jawaabtaadu ama ha ay tahay jawaabtaadu, waxaan rabaa inaan kuusoo bandhigo mid ka mid a saacadaha smartwatchska oo ay soo saartay shirkadda Samsung oo ay si gaara ugu talagashay jimicsiga ama inuu qofka dhaqdhaqaaqiisa maalinlaha la socdo, haddii uu socod ahaan lahaa, orod ama noocyada kala duwan ee jimicsiga, xitaa haddii uu dabaal yahay. saacaddan magaceeda waa Samsung Galaxy Fit 2. shirkadda Samsung sidaan kuu sheegay waxaa ugu talagashay dadka jimicsiga xiiseeya ama dadka raba in dhaqdhaqaaqooda ay xisaabiyaan. tusaale ahaan, si aad maalin walba ogaato inta aad socotay, inta aad oroday iyo jimicsiyadaada kala duwan. saacaddan sidoo kale waa muhiim inaan kuu sheegay, waa mid ka mid a saacadaha ugu raqiisan oo ay soo saartay shirkadda Samsung. $100 haafkeeda xitaa waa uu kasii raqiisan yahay. saacaddan waxay ku timaadaa midabo kala duwan. midabkanse waa mid ka mid a midabada aan aniga xiiseeyo, laga yaabo adigana inaad xiiseyso. waa midabka casaanka ah. inkastoo ay saacaddan aysan ahayn, kartoonka ayaan ka furaynaa saacaddan. dabcan aniga xitaa maanan arkin weli. waxaan rabaa inaad ila aragto sida ay u eg tahay iyo waxyaabaha ay qaban karto intaba. ila soco si aad wax badan uga ogaato saacaddan Samsung Galaxy Fit 2. haddii aan naqshada saacaddan ku hormaro, dabcan waxaad arkaysaa inay laba midab ka kooban tahay. midabka madowga ah oo saacaddu ay ka samaysan tahay iyo suunka oo israacsan oo midab casaana uu ka samaysan yahay. dabcan midabo kalena way jiraan. haddii aad doonto qaybtan oo dhanna intaad ka bixiso ayaad suunka sidaa u bedelan kartaa, oo markaa suunka midabka aad doonto ayaad ka dhigan kartaa. si aad saacaddan u adeegsato, waxaad u baahan tahay inaad marka hore soo degsato barnaamijka Galaxy Fit. waxaadna kusoo degsan kartaa telefoonkaaga iPhone-ka ama Android-ka, hadba midka uu noqdo. hadda get started ayaan leeyahay. halkan ayaad ka dooran kartaa midda aad doonto. markaad applicationka saacadda soo degsato ayay saacaddan adeegsigeeda kuu bilaabmaysaa. inta ka horeysaase ma isticmaali kartid. dabcan saacaddan waxyaabaha ay leedahay haddii aan ka hadlo, saacaddan shaashadeedu waa 1.1 inch. waxay ka samaysan tahay AMOLED. dabcan waa shaashad muuqaalkeeda uu tayo sareeyo, inkastoo aanan loogu talagelin in wax badan laga arko, oo waa shaashad dhuuban. maadaama 1.1 inch aan ku leeyahay waad dareemi kartaa. sidoo kale waxay leedahay Bluetooth version 5.1. dabcan waa shaashad biyaha iyo boorka u dulqaadan karta ilaa iyo xad 50 mitir ah. dabcan waad ku dabaalan kartaa xitaa. culayskeedu waa 21 gram, ma cusla. baterigeedu waa 159 miliambeer, laakiin waxay ku hayn kartaa ugu yaraan 10 maalmood, xitaa haddii aad si caadiya u adeegsato. way ka badan tahay xitaa 15 maalmood ayay dhahaan. haddii si caadi ama si degan oo aanan badnayn aad u isticmaashana, ilaa iyo 21 maalmood ayay kuu gaari kartaa. notificationka iyo qofka ku soo wacay ayaad halkan ka arki kartaa, inkastoo qofka aadan u jawaabi karin maadaama shaashadu ay aad u yar tahay. raamka saacaddan waa 2 megabyte. kaydka saacaddanna waa 32 megabyte. dabcan waad dareemi kartaa xog badan looguma talagelin in lagu kaydiyo. waxay kaliya ku hayn kartaa ama ay ku haynaysaa xogta jimicsiga maalinlaha ah. sidaad u jeedo, shaashaddan yar waxay kugu tusinaysaa waqtiga, bateriga, inta maalinka aad socotay iyo waxyaabo kale haddii aad adiga doorato. waad iska bedeli kartaa marka watch face-ka ama saacadda sida ay kugu sheegayso. kaliya waxaad samaynaysaa applicationka ayaad galaysaa. waxaad halkaa ka dooranaysaa midka adiga aad doonto. ilaa iyo 70 watch faces oo kala duwan ayaad leedahay. midka aad doonto ayaad kaliya ka eeganaysaa, kadibna waad dooranaysaa. aniga haddeer tusaale ahaan midkan ayaan u bogay. markaad sidaa u doorato, isla markii
saacadda way isbedelaysaa sidaad u jeedo midka adiga aad dooratay ayay kaaga dhigaysaa. sidoo kale waxyaabo kale ayay ku cabiraysaa. halkan waxaad ka dooranaysaa nooca jimicsiga aad samaynayso. tusaale ahaan walking, ma soconaysaa, ma orodaa, ma baaskiil kaxayna, ma dabaala, mise noocyo kale oo jimicsi. inta adiga aad rabto inaad jimicsiga samays kali ayaad dooranaysaa, kadibna way ku xisaabinaysaa inta jimicsigaas aad wado. 3 2 1 waa kaa jimicsiga ayaad bilaabaysaa. intaad jimicsiga wado waxay sii qiyaasaysaa ama ay sii cabiraysaa garaaca wadnahaaga, inta kiilo kalori ee kaa go'day, iyo inta tallaabo aad qaaday haddii socod ama orod uu yahay oo kale, iyo waxyaabo kale ayay ku cabiraysaa. dabcan halkan waxay si joogta u cabiraysaa sidaad u jeedo garaaca wadnahayga. haddeer waxa uu marayaa 77 beats per minute, waa normal dabcan. sidoo kale saacaddan waxay ku xisaabin kartaa hurdadaada. waxay sidoo kalena leedahay waxyaabaha caadiga smartwatchka ay leeyihiin sida stopwatchka, alarmka iyo waxyaabaha kale. tusaale ahaan waxyaabaha ay leedahay ee muhiimka waxaa ka mid ah in haddii maadaama telefoonkaaga ay ku xiran tahay, haddii telefoonkaaga uu gurigaaga lexlumo ama meel dhow uu yaallo oo kale oo aad weyso, saacaddana ay ku xiran tahay, waad raadin kartaa. keliya waxaad raadinaysaa find my device, kadibna sidaas fudud ayaad telefoonkaaga ku helaysaa. dabcan meesha uu yaallo ayuu sidaa uga soo qaylinayaa. maadaama aan kuu sheegay in saacaddan ujeedkeeda ugu weyn oo ay Samsung u samaysay ay tahay in qofka dhaqdhaqaaqa iyo caafimaadkiisa maalinlaha uu la socdo, waxaad keliya ku ogaanaysaa inaad hal mar dhanka midig u leexato. waxaad ogaanaysaa guud ahaan waxyaabaha aad jeclaan lahayd inaad maalinkaa ka ogaato caafimaadkaaga. tusaale ahaan qaybta kore waxaa kuugu sheegaysaa inta tallaabo maalinka aad qaaday, garaaca wadnahaaga inta uu yahay, hurdadaada habeenkii ugu dambeeyey sida ay ahayd, distancega iyo inta aad socotay, inta kilomitir ee aad socotay. sidoo kale garaaca wadnahaaga ayay warbixin kaa siinaysaa. tusaale ahaan minimum ilaa iyo maximum, ugu badnaan inta uu gaaray ilaa ugu yaraan inta uu noqday. resting marka aadan wax jimicsi haynin, dhaqdhaqaaqa ama garaaca wadnahaaga inta uu yahay, iyo waxyaabo kale oo badan. haddii aad u baahan tahay oo kale in saacadaada aad hesho, halkan find my band ayaad taabanaysaa, kadibna start ayaad leedahay. saacadaada halkaas ayay kasoo qaylinaysaa. inkastoo aysan cod lahayn way gariiraysaa un, marka gariirka ayaad ku helaysaa. haddii laakiin meel joodari ama dhar oo kale ay ku dhex jirto, waxaa laga yaabaa inaadan gariirka maqlin. haddii aan qiimaha saacaddan ka hadlo, Samsung saacaddan waxay ugu talagashay in qofka jimicsigiisa iyo nolol maalmeedkiisa caafimaadkiisa uu la socdo. qiimaheeduna waa $45. dabcan waa mid ka mid ah saacadaha ugu raqiisan ee Samsung soo saarto. ugu dambeyntii, intaanan su-aal ku weydiinin, waa su-aal badanahay, waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo waqtiga qiimiga badan eed ku bixisay daawashada muuqaalkan. laakiin su-aasheeda aan u imaadee, sidaad u aragtaa saacaddan? qaybtee ayaad ka heshay? ma iibsan lahayd? dabcan haddii ay jawaabtaadu haa tahay oo aad jeclaan lahayd inaad iibsato, waxaad ka iibsan kartaa shirkadda Haleel Commodities oo ah wakiilka saxda ah ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya. xarunteedu waxay ku taallaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho. shirkadda Haleel keliya kaama iibinaysa saacadde, waxay sidoo kale ku siinaysaa damaanad. gabagabadii muuqaalka mar kale ayaan kuu mahadcelinayaa. haddii aadan ka mid ahayn asxaabta im252, fadlan nagu soo biir, waan ku soo dhaweynaynaa. inta laga gaarayo muuqaalka xiga, baidankii nabadgelyo.